wadayaal hadda waxaanu ku sugannahay xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka maroodijeex oo goordhow la filayo in si rasmi ah ay ugu dhawaaqaan natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka caasimadda hargeysa iyo weliba golaha wakiilada ee gobolka maroodijeex iyadoo inta badan Soomaaliland la dhameeyay natiijada hordhaca ah isla markaasina komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen ilaa 19 degmo doorasho iyo weliba 5 gobol oo ah doorashada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland waxa hadda la sugayaana ay tahay natiijada doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolka maroodijeex iyo weliba sidoo kale degmada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasi oo saddexda xisbi wadani ucud iyo kulmiye ay uga sharaxnaayeen doorashada aqalka golaha wakiilada ay ku loolamayeen 20 kursi oo gobolka maroodijeex uu leeyahay iyo waliba 17 kursi ay ka kooban yihiin golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa halkan aanu ku sugannahay oo ah xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka maroodijeex waxa ammaankeeda aad loo adkeeyay isla markaasina ciidamada booliska Soomaaliland ay sugayaan ammaanka goobta ayaa goordhow si rasmi ah looga dhawaaqi doonaa natiijada cidda ku soo baxday 20 kursi oo golaha wakiilada ee gobolka maroodijeex iyo waliba 17 kursi ee golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa telefishinka RTN ayaa goordhow kala socon doontaan natiijada doorashooyinka aqalka golaha wakiilada ee gobolka maroodijeex iyo waliba golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa taasi oo murashaxiinta ku loolamaya ay ka soo bixi doonaan saddexda xisbi qaran ee kulmiye ucud iyo waliba wadani goordhow ayaan rajaynaynaa si rasmi ah loogu dhawaaqan natiijooyinkaasi wixii warara ee ka soo kordha arrimaha natiijooyinka doorashada ee golaha wakiilada ee gobolka maroodijeex iyo waliba golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa oo iyagu ah labada meelood ee ilaa hadda natiijadeedii hordhaca ahayd dadku sida weyn ay u sugayaan iyadoo inta kale guud ahaan dalka natiijooyinkoodii hordhaca ahaa la dhammaystiray goordhow ayaynu halkan ka wada socon doonaa